injiilka sida Luukas u qoray cutubka 9 12 ayuu isugu yeedhay wuxuuna siiyey xoog iyo amar ay jinniyada oo dhan ku saaraan oo ay cudurro ku bogsiiyaan wuuna diray inay boqortooyadii Ilaah ku wacdiyaan dadka oo ay bogsiiyaan kuwa buka wuxuuna ku yidhi waxba safarka ha u qaadanina ama ul ama qandi ama kibis ama lacag laba khamiis ha qaadanina guri alla gurigaad gashaan jooga meeshaasna ka baxa kuwa alla kuwii aan idin soo dhoweyn markaad magaaladaas ka baxdaan siigada cagihiina ka dhabaandhaba inay marag ka geesa ku ahaato markaasay baxeen oo tuulooyinka ayay dhex mareen iyagoo injiilka ku wacdiyaya oo meel walbaba kuwa buka ku bogsiinaya markaasaa taliye Herodos maqlay waxa dhacay oo dhan wuuna shakiyey waayo qaar baa yidhi Yooxana ayaa kuwii dhintay ka soo sara kacay qaarna waxay yidhaahdeen Eliyaas ayaa soo muuqday qaar kalena waxay yidhaahdeen nebiyadii hore ayaa soo sara kacay markaasaa Herodos wuxuu yidhi Yooxana madaxan ka gooyey yuu yahay kan aan waxan ka maqlayo oo wuxuu doonayay inuu arko rasuuladii markay soo noqdeen ayay isaga u sheegeen waxa ay sameeyeen wuuna waday oo keli ahaan u kaxeeyey magaalada Beytsayda la odhan jiray laakiin dadkii badnaa goortay ogaadeen way soo raaceen markaasuuna iyaga soo dhoweeyey oo wuxuu kala hadlay wax ku saabsan boqortooyadii Ilaah oo kuwii u baahnaa in la bogsiiyana uu bogsiiyey goortii maalintii dhammaanaysay 12 ayaa yimid iyagoo leh dadka badan dir si ay u tagaan tuulooyinka iyo beeraha ku wareegsan oo ay ugu hoydaan oo cunto uga helaan waayo meeshan cidlada ayaynu joognaa wuxuuse ku yidhi idinku siiya waxay cunaan waxay ku yidhaahdeen annagu wax ka badan 5 kibsood iyo 2 kalluun ma hayno inaanu tagno dadkan oo dhan cunto u soo iibino maahe waayo waxay ku dhawaayeen 5,000 oo nin wuxuu hertiisii ku yidhi u fadhiisiya koox kontona sidaasay yeeleen oo wada fadhiisiyeen markaasuu wuxuu qaaday 5 kibsood iyo 2 kalluun oo intuu cirka eegay ayuu barakadeeyey oo kala jebiyey oo hertiisii siiyey inay dadkii badnaa hortooda dhigaan markaasay cuneen oo ka wada dhargeen waxaana la guray jajabkii ka hadhay oo 12 dambiilooda intuu keli ahaan u tukanayay ayaa hertiisii la joogtay markaasuu weydiiyey isagoo leh dadkii badnaa yay igu sheegaan way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen Yooxana baabtiisaha qaar kalena waxay yidhaahdeen Eliyaas qaarna waxay yidhaahdeen nebiyadii hore oo soo sara kacay markaasuu wuxuu ku yidhi idinkuse yaad igu sheegtaan Butros ayaa u jawaabay oo ku yidhi Masiixa Ilaah laakiin wuu waaniyey oo wuxuu ku amray inaanay ninna waxaas u sheegin isagoo leh waxay waajib igu tahay wiilka aadanuhu inuu wax badan ku xanuunsado oo ay waayeelada iyo wadaadada sareeyo culimadu diidaan oo la dilo oo uu maalinta saddexaad la sara kaco markaasuu wuxuu kulligood ku yidhi mid uun hadduu doonayo inuu iga daba yimaado ha isin karo isku tallaabtiisana maalin walba soo qaato oo hay soo raaco waayo kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa laakiin kan naftiisa u lumiya aawaday kaasaa badbaadin doona waayo nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu islumiyo oo khasaaro maxaa yeelay ku alla kii ka xishooda aniga iyo hadalkaygaba wiilka aadanaha ayaa ka xishoon doona isaga goortuu ku yimaado ammaantiisa iyo ammaanta aabbihiis iyo tan malaa'igaha quduuska laakiin run baan idin sheegayaa kuwa halkan taagan qaarkood si naba dhimasho uma dhadhamin doonaan ilaa ay arkaan boqortooyada Ilaah abbaaraha 8 maalmood hadalladan dabadood waxaa dhacay inuu waday Butros iyo Yooxana iyo Yacquub oo buurtuu fuulay inuu ku tukado oo intuu tukanayay araggii wejigiisa ayaa si kale noqday dharkiisuna caddaan ayuu la dhalaalay oo baleeg 2 nin ayaa la hadlayay isaga waxayna ahaayeen Muuse iyo Eliyaas oo ammaan ku soo muuqday oo waxay kala hadlayeen dhimashadiisa uu Yeruusaalem dhowaan ku dhammayn lahaa laakiin Butros iyo kuwii la jiray ayaa hurdo la cuslaaday oo goortay tooseen ayay arkeen ammaantiisa iyo 2 nin oo la taagan
kolkay ka tegayeen waxaa dhacay in butros ku yidhi ciise macallimow waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno haddaba 3 waab aanu ka dhisno mid adaan kuu dhisaynaa midna muuse midna eliyaas waayo ma uu garanaynin wuxuu leeyahay intuu waxaas lahaa waxaa timid daruur oo iyagay hadhaysay wayna baqeen kolkay daruurtii galeen daruurtiina waxaa ka yimid cod leh kanu waa wiilkayga aan jecelahay ee maqla isaga goortii codkii ahaaday ciise keliya ayaa la arkay markaasay iska aamuseen oo maalmahaas ninna uma ay sheegin wixii ay arkeen maalintii xigtay goortay buurta ka soo degeen waxaa dhacay in dad badani la kulmay isaga oo baleeg nin dadkii badnaa ka mid a ayaa qayliyey isagoo leh macallimow waxaan kaa baryayaa inaad wiilkayga eegto waayo waa madigayga oo baleeg jinni baa qabsada oo dhaqsiba wiilkaa qayliya jinniguna wuu gilgilaa oo wiilku afkuu ka xumbeeyaa dhib ayaa jinnigu kaga baxaa isagoo aad u burburinaya waxaan xertaada ka baryay inay ka saaraan wayna kari waayeen markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi qarniyahow rumaysadka daran oo madaxaadagu ilaa goormaan idinla jiri doonaa oo ilaa goormaan idiin dulqaadan doonaa wiilkaaga halkan keen intuu weli soo socday jinnigii ayaa jeexjeexay oo gilgilay markaasaa ciise jinnigii wasakhda lahaa canaantay wiilkiina ayuu bogsiiyey oo aabbihiis ku celiyey kulli way ka wada yaabeen ilaah weynaantiisa laakiin intay kulligood la wada yaabsanaayeen wixii uu sameeyey oo dhan wuxuu xertiisii ku yidhi hadalladanu ha galeen dhegihiinna waayo wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacan gelin doonaa laakiin hadalkaas ayay garan waayeen waana laga qariyey si aynan u garan wayna ka cabsadeen inay hadalkaas wax ka weydiiyaan waxaa ka dhex kacday dood ay islahaayeen keebaa ahaan doona kan inoo weyn laakiin ciise markuu gartay fikirada qalbigooda ayuu ilma qaaday oo is-ag joojiyey markaasuu ku yidhi iyaga ku alla kii magacayga ku aqbalaa ilmahan wuu i aqbalaa oo ku alla kii i aqbalaa wuxuu aqbalaa kii isoo diray waayo kii idinku wada yar kaas ayaa u weyn yooxana baa u jawaabay oo ku yidhi macallimow waxaanu aragnay qof magacaaga jinniye ku saaraya oo waanu u diidnay waayo isagu nama uu soo raaco laakiin ciise wuxuu ku yidhi ha u diidina waayo ka aan idinka gees ahayn waa idinla gees goortii wakhtiga isaga kor loo qaadi lahaa uu dhowaaday wuxuu wejigiisa u jeediyey inuu yeruusaalem tago markaasuu hortiisa cid u diray oo intay tageen ayay galeen tuulo reer samaariya inay wax u diyaariyaan isaga iyaguse ma ay dhoweyn waayo wejigiisa ayaa u jeeday xagga yeruusaalem markaasaa xertiisii yacquub iyo yooxana goortay arkeen waxay ku yidhaahdeen sayidow ma doonaysaa inaanu dab amaro inuu cirka ka soo dego oo baabi'iyo isaguse waa ku jeestay oo canaantay iyaga oo ku yidhi garan maysaan caynka ruuxa aad ka tihiin markaasay waxay aadeen tuulo kale oo intay jidka ku socdeen nin baa ku yidhi isaga waan ku raacayaa meel allaa meeshaa tegtidba markaasaa ciise wuxuu ku yidhi dawacooyinku godad bay leeyihiin shimbiraha cirkuna buulal bay leeyihiin laakiin wiilka aadanuhu meel uu madaxiisa dhigo male mid kalena ayuu ku yidhi isoo raaca laakiin isagu wuxuu ku yidhi sayidow horta ii oggolow inaan tago oo aabbahay soo aaso laakiin wuxuu ku yidhi iska daa meydadku ha aaseen meydadkooda laakiin adigu bax oo boqortooyada ilaah ku naadi mid kale ayaa yidhi sayidow waan ku raacayaa laakiin horta ii oggolow inaan kuwa gurigayga joogo ku soo idhaahdo nabadgelyo ciise ayaa ku yidhi ma jiro nin gacantiisa mixeraadka saara oo dib u eega oo u qalma boqortooyada ilaah